السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waa hadaltii toddobaadkii maalmaha kamid ah naga daawatan ku soo dhawaarkii kooban waxaana idin leeyahay aniga Xuseen Sheekh Daahira madaxweynaha Dini ayaa ku tilmaamay Solbari dowladda laga sameeyay inay tahay meel waxba ka jirin hore ay madaxayeen dowladda Puntland maamul sameynta khaatuma ayaa wali ka soconaysa magaalada Laascaanood halkaas wali elanka aanay ka soo bixin wal murtid loo wadara oo lagu leeyahay halkii markii hore ay saysteen qolada laba qolo ay dhinaca hogaaminaya Cabdisaaq Khaliid dhinaca hogaaminaya mudane fadhiye madaxweynaha Jubaland Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa gogol dhigay magaalada Cerigabo taasoo la rabo gobolka Sanaag dadka degan inay ku heshiiyaan halkaas markii hore ka dhacday dagaal sokeeyay sanadkii la dhaafay markab laga leeyahay dalka Turkiga ayaa magaalada xeebadka Puntland lagu qabtay kaasoo hubiyay sanad siday wararkan ay sheegayaan inuu dhisay dowladda Soomaaliya UK iyo Jarmalka ayaa markii ugu horeysay tan dagaalka labada adduunka heshiis diblomaasiyadeed kula saxday magaalada madaxda dalka Jarmalka dhinaca kale kulmiye ayaa wali labadiisa garab u kala fadhiyay halkay soo iyagu murtiyo ka soo saareen garabka u janjeera wasaal kale u dhigeen gudoomiye ku-xigeenkii koobaad mudane Soomaali halkan waa hadaltii toddobaadkii maalmaha kamid ah aan ugu jeedino daafaca caalamka warbixii oo caalamka Soomaalida iyo daafaca caalamkaba waxaan idin leeyahay Xuseen Sheekh Daahir ku soo dhawaada warkii oo fidsan hana ilaawina ina wixii wariyo calaana ma adiidantii ama aanu raacsantiin xaq wasu ku dhaaftaan iyo wixii aad rabtaan inaad ugu taageertaan xawsana leegta iyo sharka oo ah inaad bal caalamka taawato iyo inaad gudbiso soo raac markastaba hal ku soo dhawaada warkii oo fidsan madaxweynaha Dini ayaa qubada u jeediyay ku tilmaamay Solbari inay ka mid tahay Puntland lixda gobol ee laga sameeyay Puntland ay ka mid ahayd 1998 ay beelaha deegaanadaasi ku sameysteen magaalada Garowe xilligaas oo hogaaminaya Allah u naxariistay Cabdullaahi Yuusuf Axmed tan iyo 1998 Puntland waxay ku talaabsanaysay horumar walow ay iska jirta caqabada ka hor yimaada xilliyada qaar kuwaas dagaal sokay ay sababeen balse ka soo gudubtay muddo dhowr iyo 20 sanadood ayaa laga joogaa 1998 xilligan Puntland waa dowladda federaalka deegaan ahaan dhulka ugu nabdoon dowladda Puntland ayaa ku talaabsatay wasi sheegeen in ka hirgeliso maamul iyo maareyn ka hana qaada geeyigaasi xilligii 2013 dagaalkii qarxay gobolka Soomaaliya u dhaxeeyay dadka deegaankaas iyo Somaliland ayaa Puntland si qayl caadi ah ugu halgantay halkaas doonayay in dowlad goboleed ay ka sameystaan wali hadda la isku khilaafsan yahay wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya ayaa ka digay magaalada Laascaanood kaasi Puntland ku tilmaamtay in fadqal ka abuurayo gobolada Sool kaasoo Puntland ku tilmaamtay gobolka Sool inuu ka mid yahay Puntland balse wasiirka arrimaha dibadda federaalku aanu kala tashanay halkaan ka sameeyay maamul ka dhana dagana loogu mareegayo Puntland dhinaca kale dhahar ayaa dagaal ka dhacay kaasoo ku dhacmaray ciidamada Trabzon Maakhir deegaanka la bagac Maakhir dhinaca kalena ciidamada Puntland howlaha hadda la sheegay inay gacanta ku hayaan goboladaasi Puntland isku dhaca bulshada ayaa ka dhacaya Maakhir iyo Khaatumo iyo Puntland kuwaasoo midba kale ku eedeynayo inay dabada ka riixayso dowladda federaalku dagaalada halka ka soconaya dowladda federaalka ayaa sheegtay iyagu inaanay dabada ka riixin dagaalkaasi balse deegaanku ay madax banaan yihiin sida ay u codeyn doonaan iyo cid ay raacinayaan sanadadooda iyo baarlamaankooda cid ay jeceystaan Puntland ayaa ku sheegtay awaaq xun in la kulmi doono deegaankaas maamulka haatan laga sameeyay kaasoo ka dhana deegaaminta Puntland lana rabana in Puntland loo jaro Khaatumo waxaan warka sugeynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo baarlamaanka ay war ka soo saaraan xaaladaha ka soo cusboonaaday walow aanay jirin in baarlamaanka Soomaaliya uu ka hadlay dagaaladaasi balse ay ku eedeeyeen dowladda Puntland ee dowladda ka raacaysa federaalku dhibaatooyinka halka ka dhacaya dagaalka ka dhacay ayaa isaguna ah dagar ka soo kordhay geeskaasi kaasoo muddo dhowr cashaar isku fadhiyay balse suldaanka guud ee deegaankaasi ayaa sheegay inaanu ka mid ahayn maamul sameynta Khaatumo ee magaalada Laascaanood ka socota kuwaas oo ku tilmaamay dagaalka halka ka dhacay ciidda dibadda ka raacayay inay dhagar u mareegsay bulshadeeda balse uu sheegay inay dagaalka cidina ka qayb galin kii ku dhintaana isagu iyo laba dhinac oo yahay suldaankiisii kuna bixiyay inay ka guuraan deegaankaas dadkii hubka sharci darrada la soo galay ee ku soo wareegay deegaankaas oo ka taliso Puntland halkani waa hadaltii toddobaadkii maalmaha kamid ah anaga daawataan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa gogol fudiyay deegaanka gobolka
si sanaag kaasoo muddo hore dagaal ka dhacay dadka qaarna ay ku kala qaxeen dhalinyarooyin dhibina lagala kulmay madaxweynaha ayaa marka ololaha ku shiray sheegay inuu nabadayn doono bulshada somaliland meel kastay dowlada ku jirto uguna fudin doono goobtoodana ugu tegi doono dadka gobolka sanaag ku dhaqan badahantooda ayaa soo dhaweeyey salaadiinta dhahar ayaa iyaguna sheegay inay u dhaga raaricinayaan soo dhaweynayaan taageerayaan in nabad lagu helo magaalada laascaanood dibna dadkii la isugu soo celiyo wasiirka arrimaha gudaha somaliland iyo wasaaradda arrimaha gudaha booliiska ayaa iyaguna ayaa ka qayb qaatay xilligii dhibaatooyinkaas ka dhacayeen walow madaxweyne ku-xigeenku muddo dheer ku sugnaa kaasoo la qarameeyey dhammaanba gobolada bari dadkii joogay ee ciidamada ahaa ee beeladada ahaa halkaan weli kuwii kale la qaramaynin dhinacyada isku hayay ayaa kala taabacsanaa in ay khaatimo raacaan waa gobolka soole iyo sanaag bari labadaba aynay maamul samaystaan kaasoo aan lagu guulaysan magaalada ceergaabo taasoo haatan degan oo ah somaliland ay si buuxda gacanta ugu hayso taasoo haddana laga rabo inay nabadin ku tallaabsado horumarka ayaa dagaalada sokeeye horumarinta bulshada waxbarashada iyo caafimaadka ayaa dibdhac ku yimaadaa walow ay haatan ay dib u soo laabatay magaalada ceergaabo taasoo haatan gacan bulshadu ay cashuuraadka iyo maamulka iyo maareynta ay ka hana qaadeen kuwaasi tan iyo xilliga dagaalkaasi ka dhacay waxa kada ay qaarkood galeen dhinaca kale marka laga leeyahay dalka Turkiga wasiir sheegayna ayaa lagu qabtay xeebta Puntland kaas oo siday dowladda federaalka waa markii labaad ee saddexaad ee xeebaha Soomaaliya lagu qabto hub dowladda federaalku leedahay dowladda Puntland ayaa ku adeystay mahoraba inaan la qaadin cunaqabataynta hubka kaasoo aafa ku ah bulshada Soomaaliyeed haatan hub ka badan midda Soomaalidu oo iska difaacday inuu yaalo balse aanay jirin dowladana qaada oo xuduudaheeda hanatay tan iyo 1900 dowladda Jaalle Maxamed Saabir ee ka burburtay bulshada Soomaaliyeed waxa aafeeyay hub si sharci darro uga soo gala daafaca caalamka mid ganacsi iyo mid bulshada haysataba oo laga halay dowladda xilliga tilneysay markii dowladda dhexe ay burburtay hubkii ayaa wax u galay shacabka kaasoo qolo kastaba ay intii ay heshay ay dhinac u jahaysatay dagaalada Soomaaliya ku al-shabaab kuwa qabiileysiga ayaa loo adeegsaday hubkii xilliga ka halay ilaa tan iyo maanta walow hub kale oo ka soo galay meelo kale aanay dadka inta badooda aanay cadeynin balse la arkayo in hub bulshada Soomaaliya dhexdeeda lagu iibiyo hubkan ayaa kii ugu ballaarnaa ee dad deegaankaasi ay qabtaan halkii markii hore hubka muddo laga jiro 5 sano 6 sano ka hor lagu qabtay deegaanka marka la sheegay inuu ay wateen ganacsato markii dambe ay la wareegeen markabkan ayaa mid sanad seeta taangiyo oo si sheegeen iyo baabuurta ku gaashaaban hubka sida doorka u dhaca Puntland ayaa war ka soo saartay in iyadu gacanta ku hayso beesha caalamka tusiso kana hore ay uga digtay inay dowladda federaalka aan cunaqabataynta laga qaadin ilaa ay inta la helayo dowlad loo wada dhan yahay sugtana xuduudaheeda badda iyo cirka iyo dhulkaba dowladda Soomaaliya ayaana wali gacmaha ugu jirin dhul ka mid ah deegaamada Soomaalida oo badiba ay ka taliso ama dowlad goboleedyo ama ay ka taliyaan al-shabaab halkani waa hada TV oo toddobaadkii maalmaha kan mid anaga daawataan dhinaca kale kulmiye ayaa wali u kala fadhiya laba garab halkay qolada shalta ka soo saartay in dadka sheeganaya kulmiye golaha dhexe kamid yihiin aanay kamid ahayn kuwaas aanay carabaabin gudoomiyaha Maxamed Kaahin Axmed ayaa hore loo sheegay xisbiga ka halkaas uu isbahaysi kula sameystay mucaaradan lama hayo cid laba garab kala sheeganaysa mooyaane cid iyagu dhexdhexaad ka xisbiga kulmiye wali waa iska casileen xubno kamid ah xisbiga kulmiye kuwaas oo qaarkood ku biireen xisbiga wadani dhinaca kale UK iyo Jarmalka ayaa heshiis diblomaasiyad ka saxeeyay magaalada madaxda Jarmalka kaasoo tan iyo 1940 dagaalkii labada adduunka aanay kafool aanay soo fariisanin wala marka dhinaca EU-da ay ku wada jireen 27 wadan ee ku bahoobay EU-da ayaa waxa ka baxay dalka UK kaasoo isagu aan kamid ahayn EU-da balse Yurub ahaan ugu jira European Unionka ayuu UK ay rabaan inay wadan walba sidiisa ula heshiiyaan halkaas ay EU markii hore ka deerinaysay inaan UK loola heshiinin wadan balse European Unionku oo magaalada Brussels ayagu heshiis kale la galayo ay leeyihiin dhinacyada iskhilaafsan ee siyaasadda adduunka ayaa keena in qof kasta dantiisa halku ka arko xilliyada qaar ay ku khasabto dantu inuu la heshiiyo cid uu doonayo UK iyo Jarmalka ayaa waxay isla qaateen in wada shaqeynta amniga iyo diyaaradaha ama falayga wax loo yaqaano iyo dhalinyarada wax ka barata jaamacadaha inaan lagu xirin fiisay
الاسمال قشطه كواس أي هشيس أي شيئين دول الماسين إنه يهي أي كان قادر سنة كان قلدي هسا هالكني وهذا التيفة تضبط كمان ما كان ماذا أنا قد وانتان وحوري وعلى واحد الدافع عالم كده هني أنت سوينا قريه هي نبض قبي أنا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.